الميديا لو قلي إسلام مركانا أي عدو اللي بدك الدونيسي ولا كعبي أو واحد دونيسي أي كتر ستي واحد دونيسي أي كربتي لكن سوى حولنا هي عاوة رونتا شرتا وحوي أراس قروح بدن iyo lamaanaha istoortay ee aad arkaysaan oo runtii aan u ducaynayno oo aan u hambalyeynayno oo aan Ilaahay uga baryayno inuu ka dhigo kuwii ifya aqraba guul ka gaaro waxa aan kaloo doonayna halka ku xuso sidaad ogtihiinba mar walba oo aroos la yimaado waxaa jirta in dadku ay runtii farxad badan ay muujinayaan oo ay halkan dad badan oo sharaf la isugu yimaadeen فرحتنا لو حنكون بالعملنا آياتها القرآن الكريم كا حسين إبراهيم أيها لو آخر الدورة حسن إبراهيم حسين هاي خالدين أحمد عبد البيتو وأنا سحسنة حسين إبراهيم أذكر حسين مرة دي بآيات القرآن كأنه آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم كل مرة تيجي يقولوا القرآن في آخره وين كلمة دي والمنا أنا لحظة مرة هوري وح عن همبليين يا عروسك يا عروسدا نستيحو يو حسين وحلاي هاي عروسكي نهار نقضو كي بش يبرواقو إلهنا وحن ذيك برينا إنه هو بخير قبائل كرسيو وحن كروه هل كان كسر دوينيا لما تذكر شرفت له قروح ضبضن سوء أشيفي إن أي عاوة كسر قريب كان مناسبة دن قروح ضبضن له وحن ليه هاي كل الملف فوق بكتي معدين هذه أدوغم هتسنتهين ترى قاعد راسوك الشين عروس كنا وحن أرجعينيا خير يا بركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسين إبراهيم أسكر أدبو مهتسين هاي دعاءنا إلهي نوع قبله تدوينها شرفت لي هالك قصة قيم قالنا مرة لوادي صدحات بوي مهتسين وحن شعلها إمي كان صاحبك أحمد عبد البيتة وحوجا يجيروين وحاجة غيرها أنا قصة عدي قيسس كنا كلمة دي سسيو وراس قبل يروجي يمدوا إلى هرقيس وقصة صعد علي صاحب أحمد سودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha faraha badan leh quruxda badan leh meelaha fog uga yimid arooskan bilan waxa aan leenahay anigoo ku hadlaya magaca reer Cabdibiite anigoo ku hadlaya magaca reer Somaliland anigoo ku hadlaya magaca reer Soomaaliya anigoo ku hadlaya shanta Soomaaliyeed waxaan hambalyeeynaya oo aan soo dhaweynaya arooska quruxda badan leh caawa aynu wada joogno waxaan leenahay kuwa isku waara Allah idinka dhigo dhammaantiinna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida qiimaha badan leh ee aad u soo ajiibteen codsigayagii ahaa xafladan quruxda badan ee naga cabirtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa Puntland iyo cudur ku jira gaar ahaan reer Puntland waxaan leeyahay waa boqoradii baa ka socota waa boqorad isnay waxaan leeyahay mabruuq مبروك ألف مبروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد أبو مهتسي هاي والله ما بقرطوي سهلي برجورنا بقرطوي ده وحلا ورجري فردها ينوكل الدول لكن فردها نويس لا شان قاعدين بارو لنا هاي وفردها ولا سعونية هذا أبو مهتسي دمان تيمبا إن أورجانيزيشن كي نظام كنا على نويل عليه مولد بنسنودي بيا أو هالكنسنا كم إذا مرتدا شرفت له علوس مولد كسر دو كلمة ده. Thank you ولانك غالية. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan halkan idinka sheegay inaan ku soo dhaweynayno quraanka kariimka cadadkiisa aniga oo ah Mawlid Ahmed Iidan waxaan caawa halkan doonayaa inaan hadal wanaagsan oo qurux badan ka iraahdo caruuskeena iyo caruusadeena Nasteexo Ciise Xirsi iyo Xuseen Cabdi Ismaaciil dhinaca maaragtay Yurube ka raacaya boqoradan magaceeda soo horeysiinaya waxaan jeclahay in Ilaahay ka dhigo guriga caawino dhismaya guri lagu waaro qarniyo la xasuusto riisano badan oo lagu xasuustana waan idin sheegaya caawa waxaan jeclaystay hadday igu raacdaan waa ina sacabka tuntaan
waxay Somaliland Puntland Soomaaliya oo dhan waxay heshay caawa boqortooyo anigu wadankii waqti hore ay ugu dambeysay runtii laakiin waxa la ii sheegay in xidhiidh dheer oo wanaagsan oo aan jecel xitaa gabaygii qarniga dee waxa loo tiriyay dumarka reer Puntland oo maaragtay habareerahaya caawa waxaan doonayaa idiin sheegno haddii aan anigu caawa matalayo sida walaalkay Axmed inankii iga horreeyay hargeyseeni waa Xuseen walaalkii oo ka weyn oo ilaa waqti dheer inoo yimid marka waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan halkan aad uga amaano dadkii xafladan caawa soo suurtageliyey oo aad iyo aad igu dheer aan jeclahayna inay dee boqortooyada aynu caawa abuurnay ay noqdaan maaragtay dadkii la wadi lahaa madaxdii maaragtay la dejin lahayd boqortooyada haddaan u ciyaar dhowbaliye waxaan doonayaa boqortooyo dhaba ayaan rabaa inaan samayno marka waxaan halka uga mahad celinayaa Nuure Bidixle Amran Cali October Rooda Cadayse Aamina Ciise Dheere Foosiye Khaliif Cilmi ismahana ama Asma Yuusuf kolba saa u taqaanaan waxaad leeyahay sidaa quruxda badan ee arooskan caaw check 1 2 sidaa quruxda badan ee caawa aan u soo casuumnay isugu nimi xafladda quruxda badan waxaan jeclahay inaynu maaragtay aynu u hambaliyeyno dadka aan magacyadooda sheegay xafladda quruxda badan ee ay noo sameeyeen caruuska iyo caruusadana waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaad guri ku waartaan heshaan caruur khayr qabta oo dadkooda dhaqankooda diintooda iyo dalkoodaba anfaca boqortooyada aan doonayana idintaaba qaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan igana raalli noqda waxaan halkan ka ilaabay marna habarartay marna saaxiibada abshiro oo iyaduna xoog weyn ka soo qaadatay abaabulkii xafladan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dad badan baa kulay jecel inay hadlaan marka waxaan ku soo dhaweynayaa iminkana oo aan qaybtii dee haweenkana waanaynu siino codka qayb ka mid ah amaaley aadna soo dhawow oo kelmaddaadii aadna aad halkan arooska iyo uga jecelaysay ku soo dhawow thank you walaalo maasha allah quruxda waxaan ku leeyahay ducadii loo duceeyey nasteexiyo xuseen ayaa caawa halkaa ka muuqata in badan baa loo duceeyaa saxaab iyo family iyo cid kastaba waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u qurux badan aan uga dirayaa walaashay nasteexa iyo walaalkay xuseen arooskooda oon leeyahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela gurigii lagu nastee lagu nagaado intaa ka bacdi waxaa halkan jooga caawa oo inoogu yimid fanaaniin aad u fara badan waxaan ku yidhi madaxaa laga ciyaaraya caawa awal lugaha laga ciyaari jiray caawa madaxaynu ka ciyaaraynaa waxaan ku soo dhaweynayaa fanaaniinta waxaa jirta heesa gaar ah oo loo soo sameeyey xuseen iyo nasteexo oo looga keenay Hargeysa oo looga keenay wadannada meelo badan oo adduunyada ka mid ah heesahaas ay ka mid yihiin qaar uu qaaday Safaan iyo ay qaadeen Saareleys heesiba mar dhow insha Allah inuu maqashin doonaa oo lagu soo dhaweyn doonaa arooskii aroosada iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa qaybta fanaaniinta iyo walaalkay Bidaal oo leeyahay idinkuna barnaamijka halkiina ka sii wata waxaan leeyahay hambaliyo mar labaad iyo mar saddexaad walaasha iyo walaalkay noqda labadii isku waana uba khayr qaba kale amaal aad buu wanaagsan mahadsan tahay idinkuna waa mahadsantihiin wixii kuraasada ku fadhiisan karayaan ku fadhiistaan oo laga codsaday waan idiin sheegayaa waxaan iminka ku wareejinayaa in badan baanu hadlaynay gobolladii waaweynaa ayaa ila jooga waxaan jecelahay oo kale inaan iminka nimco yaasiin oo arooska soo dhaweysay haddana mar labaad soo dhaweynaysa nimco soo dhowbaan ku leedahay aad baan idin salaamayaa horta marweynka sharafta leh arooskana waxaan ilaahay uga baryaa reerkii lagu nastay lagu nagaado inuu ilaahay ka dhigo awlaad khayr qabto saalaxa oo dalkooda iyo dadkoodaba anfacda ilaahay uu siiyo labadii kala dambeeya labadii sitraama labadii jacayl ku waara ayaan ilaahay uga baryay anigu arooskii horena waa joogay sharafay tahay kana waa joogaa
midna wuxuu ka dhici arooskii horta ugu xafladaha badnaa weeyaan mid turkigu ka dhacayaa mid haddana norway buu ka dhacayaa labana waa soo aragteen kii horena waa joogay oo ilaahay baa ku dhaartay macaa aniga albaabka soo jabsaday waa jacayl nasteexa ay jeclaayeen bay dadku albaabada xoog ugu soo gelayaan aad loo jecel yahay laakiinse intaa in lagama qosoo xumaan ay dhex martay ma jirto farxad buu nagu bilaabmay farxadda waa nagu dhammaaday maasha allah caawa hees baan qaadana aniga isbeere waxaan jecelahay arooskii aroosadda inay noo soo degaan idinkuna waxaan jeclaan lahayn intaad na soo arooskii aroosadda aad kamarooyinka u kala dhex inaad halkiina ama fadhidaan ama intaa cad bay arooskii iyo dadka maamulku codsadeen inaan sheego intaa cad inaad daysaan laakiinse wixii ka shisheeya idinkaa iskale inaan brotokoolka ilaalinana aad bay u fiican tahay yuusuf dheere dee kaala iyaga adaa wada hadale waxma odhanayaa maynuba hadalka badin maayo hadalka waa la wada yidhi walaalkay xuseen biite iyo walaashay boqoradda nasteexayndho waxaan leeyahay alif mabruuk guurkiina guur khayr waxaan shacabka kale dadweynaha sharafta leh quruxda badan leh ka codsanaynaa si cajaladu inoogu qurux badato bliis saaladayna weyneeya waxaynu sugnaa waxa weeye boqorka iyo boqoradda soo dhaweeye sidaa
If you manage a team, you should be using Monday.com. Please, heestan waa hees maaragtay loogu talagalay arooska iyo aroosada only oo Safwaan Halac ugu talagalay. Please waxaan ka codsanaynaa dadweynaha arooska iyo aroosadunba ku ciyaari kara heestan. Ciddii dhaxda ku jirto please kuraastooda ku laabta ayaa la leeyahay maamulka. Please soo markaa waa arooska iyo aroosada oo qura ayaa ku ciyaari kara heestan.
ha fadhiistaan heesta lama bilaabayo fadlan fadhiista carooska iyaynaan beriskoorka ka xumayn hala fadhiisto caruuska iyo caruusada keliya ayaa la doonaya inay ku ciyaaraan heesta lama bilaabayo ilaa qof waliba uu kursigiisii ku noqdo mooyaane aad baa umahadsantihiin in yar baa hadhay weli hala fadhiisto waxa kale oo ku xigi doono hees kale oo all the way Hargeysa looga soo diray ee ku xidhisaa Ra'iilays ugu talagashay Xuseen iyo Nasteexa marka heestan iyo heesta xigta please cidna kicin arooska iyo aroosada loogu talagalay thank you
waxay ka timid all the way from Hargeysa waxaan ugu talagalay arooskii aroosada Sahra Ilays heestan meel dheer ayay soo martay marka waxay leenahay wama soo fadam Sahra Ilays iyo arooskii aroosada Oh